wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa ka daafurtay magaalada Burco kulan wacyigelin kaas oo ah mid bulshada lagaga wacyigelinayo tacadiyada ka dhanka ah carruurta iyo haweenka. Kulankan ayaa socon doona muddo 2 cisho ah waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka, hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo qaybo ka mid ah bulshada gobolka Togdheer. ugu horeynba waxa kulankan ka warbixiyay Raaxo Cabdiraxmaan Yuusuf iyo agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Cabdi Soodi. shirkeenan aynu maanta isugu nimi wuxuu daaran yahay laba ujeedo. labada ujeedo kala ah wacyigelin amba ku socota tacadiyada ka dhanka ah amba rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo carruurta. maalmahan dambe waxaynu ognahay inay awal waxa jiray tacadiyadeenu waxay ahaayeen level dhaxay marayeen, laakiin waxa weeyaan iminka sidii bay ka sii dartay. waxa la soo sheegayaa hablo badan oo la farxumeeyay oo lana dilay oo ay ugu horeysay Lughaya, Hargeysa, Burco iyo Gumbur Hargeyo oo caynaba ka tirsan. marka shirkeenan baa daaran inaynu wacyigelin dirno. wacyigelinta oo ah aynu leenahay cadayma la qoraa. cadaymadaas ayuu qofku cadaalad ku helaa. qof kastaaba intuu cabashadiisa horay ka sheego, cid kasta oo uu sheego inay horay u soo gaarsiiso xaruntii wax loogu qaban lahaa, inay horay u soo gaarsiiso. ujeedada labaad ee uu daaran yahay waxa weeyaan qaran dhan baynu nahay, laamo fara badan baynu ka koobannahay, si baynu ugu adeegnaa. qof walbaaba dhinac buu uga adeegaa qofka dhibanaha ah, inaynu hagaajino oo mar walbaaba sii update garayno, wax ku sii darno, sii casriyeyno sidii la isugu gudbinayo qofka tacadiyadu gaadheen. runtii kulankan aynu maanta halkan iskugu nimi waxa weeye tababar soconaya muddo 2 cisho kaasoo kor lagu qaadayo aqoonta bulshada, maadaama oo intan badan ay soo korodhay tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo carruurta, sidii bulshada looga wacyigeliyo dhibaatada inta badan imika bulshadeena la soo daristay ee inta badan inagu soo noqonaysay. runtii dadka halkan fadhiya waxay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada, hadday noqoto madaxdii gobolka, kuwii caafimaadka iyo kuwii magaalada ee community-ga iyaguna hogaaminayay. waxaanu rajaynaynaa 2 cisho ee halkan tababarku inooga socdo, qolihiina tababarayana way joogaan haddii aan la yidhaahdo. qolada imikale wax badan kama fahansanina insha Allah waa fahmi doontaan haddii aan la yidhaahdo. markaynu 2 cisho u samirro haddii aan la yidhaahdo. runtii kulankanna wuxuu noqonayaa mid wax badan insha Allah ay ka soo baxaan oo bulshada kor loogu qaado aqoontooda iyo sidii loogu wacyigelin lahaa dhallinyaradeenna violence-ka nagu soo noqonaya haddii aan la yidhaahdo. ayaguna dhankooda halkaasi waxaa ka hadlay waxgaradkii lagu soo marti qaaday kulankan, waxaana sheegeen sida loogu baahan yahay in wax looga qabto arrimaha la xidhiidha tacadiyada loo geysto carruurta iyo haweenka. marka ugu horeysa baadinimada waxa keenay diin la'aanta. haddii dadku diin leeyahay oo diintiisa ku adkaada ma yimaadeen cawaaqibkan. anigu marka hore waxaan idinku hanuuninayaa idinna leeyahay rag iyo dumarba diintiinna u noqda. waxaan aad u soo dhowaynayaa in cid kasta oo tacadiga ku kacda in waajibkeeda la mariyo. waxaanu leenahay hooyadu ha ogaato inanteeda waxa ay ku marayso iyo sida ay samaynayso. xagga booliiska anigu waan wakiil ka ahay gobolka Togdheer, iminka halkan ka joogo sarkaal ahaan ama taliye ahaan CID ahaan. arinta laga hadlayo kufsiga in la iska kaashado sidii looga shaqayn lahaa wax ka qabadkeeda. awalba waa la iska kaashan jiray, waa laga wada shaqaynayay, laakiin in la sii kordhiyo oo laga wada qayb qaato oo laga wada shaqeeyo sidii loo yareyn lahaa. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa dhankiisa ka hadlay kulankan, waxaanu tilmaamay sida loogu baahan yahay in la joojiyo wax kasta oo keeni kara tacadi ka dhan ah carruurta iyo haweenka. waxaanu tilmaamay in si wada jira looga qayb qaato joojinta tacadiga. sidaa ogtihiin walaalayaal, baryahan dambe tacadiyadu aad iyo aad bay u fara badan yihiin. weliba waxyaalo aynaan aqoon jirin ayaana ku soo biiray oo beriga hore waxaynu arki jirnay kufsi keliya arki jirnay, laakiin iminka dil baa weheliya. sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan ka wacyigelinno. inta maanta halka fadhida waa intii cayaantii bulshada ugu labeensanayd wey. iyadaana waajib ay ku tahay inay bulshada kala gaarsiiyaan oo ka wacyi geliyaan
siiba odayaasha dhaliil badan baa runtii dul hoganaysa waxaa la leeyahay way fududeeyaan arrimahaas oo dhanoo waxaan rajaynayaa hadday odayaasha dhaqanku ay iska taagi lahaayeen meel adag waxaan filayaa inay wax badan ina ka yaraan lahaayeen cabdiqani baafo Star TV magaalada Burco